sida oo kale waxa dhinacaygan fadhiya walaalkeen oo isaguna ah wiil dhalinyaro u dhashay dalka Soomaaliland isla markaana wadanka dibadiisa uga baxay kuna soo noqday oo dhulkiisa hooyo hadda ka shaqeysta waan kugu soo dhaweynayaa telefishinka Sam News TV iyo barnaamijka dhiirigelinta dhalinyarada magacaygu waa Nuuridiin Cabdullaahi Khaliif ku dhashay Hargeysa degan Hargeysa marka aanan dhinacyo kalaba aanan eegin ee aan barnaamijkan gaarka ah ee dhalinyarta ka hadlaya aan ka hadalno horta wadan waxa uu wax ku yahay waa dhalinyartiisa wadan dhalinyartiisu aanay waxbarasho lahayn iyo wadan aanay dhalinyartiisu qaar wadanka u hanuunsan oo ciidooda jecel aanay ahayn horta midna ma hagaago shakhsi ahaantayda kullay waqtiyada kamida oo aan aad u fogeyn way soo martay in aan wadankayga ka dhaqaaqo aan tahriib uga baxo ana u jihaysan wadamada Yurub oo inta marayay dhibaatooyinka saxaraha iyo Liibiya lafteeda iyo inta soo jid already waan ku guuleystay oo Ilaahay uu iga samata bixiyay balse markii aan ka badbaaday waxa la wixii dhibaato ahaa ee aan muhiimadeedii aan gaaray ee aan tagay wadankii aan u socday ayaa comparison-kii isbarbardhigii aan isku eegay wadankaygii iyo wadankan aan tagay ay laba kala miisaan leh ay noqdeen kulli qof bini aadan kasta oo Ilaahay abuuray waxa uu wax ku yahay wadankiisa qofka dhalinyarta ah in uu xisaabtamo ayaa wanaagsan inta aan wadankiisa ka bixin waxa Yurub ka horeeya iyo waxa halkan u yaala waxa weeye wadankeena amal la'aan ba inta badan la yiraahdaa amal la'aan baan uga dhaqaaqay wadankii oo aan u tagay qurbaha kulli qofka wadankiisa wax ku soo kordhin waaya dee wadan kalena waxna ku soo kordhin maayo waxna ka soo qabsan maayo balse amal la'aanta ay qiilka laga dhiganaya dee wax jira ma xawiyaan maanta wadankeena Soomaaliland markaad eegto inta wadanka ka shaqeysa gudaheeda boqolkiiba 60 waa dad ajaanib ah oo aan wadanka u dhalan wadankaasi qofna ma oran karo qofna lagama dhaadhicin karo wadankii amal la'aan baan uga dhaqaaqoon u tahriibay xawiyaan qofku horta wadankiisa haduu wax ka noqon waayo wadan kalena wax ka noqon maayo midda kale anigu shakhsi ahaantayda tahriibteedii qofkii maanta damiir lahi ee aqli saaxiibka u ahay wallahi dhibaatooyinka aanu marnay hadii uu og yahay iyo waxa maanta qulubtayada iyo qalbiyadayada ku sii harsan ee aan marnaba wallahi ka masaxmayn maanta qofna uma bareereen in uu wadankiisa intuu ka dhaqaaqo dib u gaaro xawiyaan maalinta aad wadankaaga xadkiisa ka baxdo maalinta waxa la waxa tahay ma jirto xabashina kuuna ximaayo Suudaani kuuna ximaayo dantiisu yaaganaya Liibiyaankuna lacag mooyo wax kala ma yaqaan badana dee 50-50 ama wad ku dhiman ama wad ka bix Yurub lafteedu dee nin iska soo carray ku arkayaan xarig bal iska ka haynaya ninkan gaalkii aynu u tagaynaa wakiinta wadankiisa dee ka soo duulay halkan noogu yimid inay gumeystay kiyo aad wadankiisa ugu tagtaana bal muxuu kugu sameeynaa inaad ku xisaabtantaa wanaagsan waxa weeyaan dad islaama ayaynu nahay diin wanaagsan buu Ilaahayna siiyay maanta wadankeena amal la'aan ma jirto nabadgelyo xumo ma jirto dawlad xumo ma jirto caafimaad xumo ma jirto wax aynu uga dhaqaaqno oo maanta wadankeena aynu sheegi karno aynu oran karno wadankaygii taasaan uga dhaqaaqay qofkii sabab iska sameeyay waa mid meesha taal xawiyaan Soomaaliland dee waa wadanka maanta jiray ee nabadgelyada aynu haysanaa aynu ku faanayno ee nabadgelyada lagu wada noolyahay xawiyaan marka aan dhalinyarta gaar aan ula hadlo waxa weeyaan Soomaalida oran jirtay dad waalida doonaysa nin waali soo maray ayaa wax laga weydiiyaa waxa weeyaan tahriibta lacagtaadii iyo naftaadii labaduba way ku baaba'ayaan waxa weeyaan lacagtaadiina loo joojin maayo oo laga tirinayo haddana dib baa lagu dhici karaa oo laga qaadi karaa haddana naftaadiina sida aad u eegtahay weligaa dib ugu eegaanaysid tahriibtuna waxa ay dhashaa waa geeri nolol xumo stress iyo ilaahay oo aad ka fogaato
gaalo aad tagto oo aad gaalo waxa ay walaaqanayso aad iska walaaqato marka dhalinyarta horta aad baan uga hadlayaa tahriibta in ay mar walba ka digtoonaadaan qof uu tagi karaa hadii ilaahay baa dhaqaaqa haya balse dadka Yurub jooga waraysta maxaad meesha ku haysaan war maxaa la idin siiyaa amal baad qabataan sideed u nooshihiin sidee la idin la dhaqmaa laakiin hadii aad iska cararto de wixii aad la kulanto aday ku taala marka anuu hadalka badin maayo waxaadalna danta iyo inta muhiimadda laga raacaa dhalinyarta aad baan uga waaninayaa shayga tahriibta la yiraahdo inay ka cararaan oo aanay marnaba niyadooda aanay soo gelin ilaahay baana idinka baryayaa aniga ilaahay uu iga soo hadeeyay in aanu ilaahay qalbigiina tahriib aanu soo marin ee wadankiina uu idin jeclaysiiyo wadanka aynu ka shaqeysano wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nuuruddin cabdullaahi khaliil waa wiil dhalinyaro ah oo hal mar isku dayay inuu ka baxo wadankiisa haddana u soo boqoliyooba dib noogu soo noqday kana shaqeysta magaalada Hargeysa nuuruddin waxaad taariibtay oo waxaad ka baxday magaalada Hargeysa waxaad sii martay wajaale sidoo kale Itoobiya waxaad sii martay dhul aad u badan imisa wadan ayaad intaad ka maqnayd magaaladaada ama dhulkaaga hooyo imisa wadan baad isku soo martay taa ka sokow waxaad nooga warantaa bal hadda inta dhexda lagu sii jiray inta saxaraha lagu sii jiro dhibaatada uu leeyahay tahriibku kulay dhalinyar badan oo imika waqti xaadirkan doonaya ama niyada ku haya ayaa jira inay tahriibaan marka dhalinyarada laftirkooda maxaad odhalayd maxaa tala aad halkan u marin lahayd bal iyadan tag soo dhaw ka dhaqaaqistaydii halkan muddo bil ah ayay sheekadan tahriibtu ay niyadeyda ku jirtay cidii aan kala tashan lahaa cidii aan Israa'iil lahayn kullay inaan ka wada tashanayno oo in aan wada baxno ay noo jideysnayd hawsha waan wada wadnay maalmaha ka mid ah ayaan ka baxnay Hargeysa adoo Itoobiya sidii ku dhaxmarnay ilaa Suudaan waxa weeyaan tahriibta saxda ah waxay bilaabantaa marka aad Addis Ababa aad ka baxdo saddex bini'aadanka qofka bini'aadanka ah ee nool ee Ilaahay abuuray aan u wanaagsaneyn horta waad heshiinaysaan oo waad walaaloobaysaan shay gaajo leeraa hurdo la'aan iyo socod aan nasasho lahayn saxaraha laftiisa waxa weeyaan waxa dhaanta saxaraha Liibiya adoo badda ku dhinta saxaraha Liibiya waxa laga ducaystaa horta in aanu Ilaahay gaariga aad saarantiin waxba aanu Ilaahay idinku yeelin waxa weeyaan wax Ilaahay laga magan galo waana marnay saxaraha 7 habeen baan ku jiray annaga iyo jamaacadayadii ikhtiyaar kama haysano wana loo hayaa nin Liibiyana gaariga nagu wada haday kaadi u degis noqoto kaadi ay ku qabato ninka gaariga wada marka ay kaadidu qabatay oo dhaadhaco oo ka faa'iideysato jaaniska mooyaane hadii ay qabowdo oo ay raagto kaadidiisu waa inaad isku sii deysay noqonaysaa anagoo gaariga saaran inaad iska sii deysay noqonaysaa saanay adiga naftaada waxba u yeelin horta nolosha tahriibtu markay ta ugu fudud ay noqoto taasay noqonaysaa adoo karaamo lahaa markaad kaadidaad iska barsirin lahayd aad sii deyso waayo deelankan gaariga wataa oo Liibiyaan ku dili karaa maxaad ii joojinaysaa waqtigan ku xisaabtamaya midda kale magafihii ay noqotay magafe wax alla wax naxariis ah oo uu cid u hayaa ma jirto laakiin naxariis waxa uu hayaa waa lacagta u shaqaysanaya waxa imanaysa in de hablii kula socday qaar ka mid ah oo inta uu ka haysto de sidoo doono ka yeelo waxna aanad oran karin waa inantayadii ama waa gabadhaydii waxaad iska tahay in qofka daawanaya taa lafteedu de waa nuqsaan iyo waxyaabo xun oo qalbigaaga iyo xusuustaada raad xun ku noqonaya xawiyaan Liibiya gudaheedii waxay leedahay mushkilaad aad u badan in xira lagu soo dhaco lagu afduubto in lacagtaadii inta laga qaado hadana dib lagu dhaco in lagu xidho in la idin soo daatood baxsataan taalifteedana xaweenkii Ilaahay ka badbaadinayo ba ka badbaada in dilka qof la dilaya aanu wax weyn aanu ahayn wax yar basiida u noqdo iyadoo dhibka aad ku dhex jirto in haddana ay badii ku sugayso
badii oo aanad fuulayn markab doonna aanad fuulayn bacdii aad fuulayso gooma ahayd ood ku murmi kartaan qaar nixi karaan marka badweynta la tago haddii aan la sii tashan oon dee alla ka cabsi la badin taa lafteeda anuu badda waan maray oo wakhtigii aan badda marayey horta anuu shakhsiyan dee si aan ahaa ma garanayo way naftaydu way qanacdaysay nafta intaasoo dhiba soo maray dee baddana waxba umaan arkayn waxa weeyaan inkastoo riski ay baddu nagu yar kacday taroonyahaanu sidanay aanu sameecadda dhigta aanu ka shaqaynayn shidaalku gabaabsi naga soo noqonayey taan goomaha aanu saarnayna qori u jabay aduu aanu isku dhex yaacnay oon dee yar naxnay inkastoo dee dadka badidoodu ay yar ooyeen haddana ilaahay baanu uskannay sidii buu ilaahay markab noogu keeno badda nooga saaray oo aanu ku tagnay talyaaniga laftiisu qofku marka uu halkan ka tago yurub baa tagtay inuu ku qanco maahee waxa weeyaan horta dadkan eeg siday u nool yihiin qosol yar oo nin gaalay uu kaala hor yimid ha ku qancin waxa weeyaan noloshii nalagu soo dhoweeyey horta dee kiniisad hoy bay kuu noqon cunto kiyo aad u gasho iyo in hurdadaadii la kaantaroolo waxaasiba dee wax waddankeena yaalla maaha cidna hurdadeeda lama kaantaroolo cidna cunto kiyo looma galo qof kastaaba wuxuu u nool yahay xorriyad shay xorriyad la yidhaha horta halkaasaad iska dhigas dee waxa weeyaan marka ay noqoto dhaqaale ahaanna dee nin bini aadan ah oo muwaadin oo waddankiisa jooga oo ilaahay si xora u baryaya inuu gaal isku daba taaga maaha arsaaqduu ilaahay siinayey waxa weeyaan maanta gaalku waxa uu ku siiyaa wax munaafacaadla maaha wax meel aad ku gaari kartana maaha anuu soo noqoshadaydii dee horta saaxiibulciyaal anoo ah oo aabba ah kolley mas-uuliyad waxay iga saaran tahay waa awlaaddayda igama saarno sharci aan yurub ku sugo iyo cuntaankiyuu ku jiro iyo kaam aan kolba seexdo balse dee mas-uuliyaddu waxay iga saaran tahay awlaadda ilaahay siiyey iyo reerkayga sidii aan u wadan lahaa taasuu ilaahay janno igu geyn karaa haddii aan dayacana dee aan ku mudan karaa ciqaabteeda dhinacyo badan markii aan ka xisaabtamay anuu waxay ii noqotay inaan waddankaygii dib aan ugu soo laabto ama aan ku qado ama aan ku dhargo in aan ku qanacsanaado waddankaygii oon iminkadan joogon saa ugu qanacsanahay oon doonayaa inaan waddankayga aan ku dhex noolaado oon ku dhargo alxamdulilah aad baan ugu qanacsanahay maanta waddankayga wax ii dhaamo ma leh alxamdulilah marka halkaasaan taana kaga baxay mahadsantahay nuurudiin weli dardaaran dhallinyarta iminka doonaysa ama hamigooda ku jiro maskaxdooda ku jirto inay tahriibto oo maadaama ay shaqo la'aan ay leeyihiin shaqo ma haysano shaqo abuur ma haysano dhalinyaro badan oo jaamacadaha ka soo qalin jabiyey ay shaqo la'aan la fadhiyaan guryaha kuna niyoonayaan amabase ay doonayaan inay tahriibaan oo waddanka dibaddiisa uga baxaan maxaa dardaaran inta halkan u marinaysa bismillaah waxa weeyaan horta mid baan odhanayaa dee aniga qudhayda markii aan tahriibayey waxbarasho la'aan maan ahayn nin waxbartay baan ahaa oo jaamacad ka baxo iskuul ka baxo secondary ka baxay waxa weeyaan hargeysa markaan ka tegayna dee waan shaqaysanayo camal la'aan kamaan baqaynoo meherad baan haysto meheradaydii baan ka cararay balse ardayga ku andacoonayo jaamacad ayaan dhameeyey waddankiina kuma hayo wax camal ah horta ardayga marka hore inuu ogaado ayaa wanaagsan waxbarashadan uu waddankiisa ka bartay haddii uu la tahriibo oo yurub la tago yurub kama shaqayso in lagaaga bilaabayo waxaad ogaataa leefalkii ugu hooseeyey ee uulada weliba ka sii hooseysay ninka gaalkaa interviewga kaa qaadayaa dee waxbarashadaadii uma baahna laakiin isagu inuu barnaamijku geliye ayuu u baahan yahay uu dantiisa kugu dee dhowlgareeyo kugu shubo oo taa ku shaqayso waxa weeyaan dameer malab sida ayuunbaad ahaan waxbarashadaadii oo soo duugowday unbaad halkan kula soo noqon dhaqankii gaaladana adoon yeelan waxa weeyaan ardaygu haddii uu jaamacad ku bartay hargeysa taageer baalashayna waad noqon kartaa waa xalaal dee waa xoogaagiyo xalaala keeriyoneer haddaad qaadatood 4 kartoon dul dhigato ama 4 shay aad dul dhigato dee wax xalaal waad ku shaqaysan kartaa waxa weeyaan yurub shaqana kaama horeyso cidina kuuma sii joogto ninka gaalkiina kaale hebel ma hebel naga maqnaaba oo shaqadan ka odhan maayo
hadduu doono intuu negative kuu dhiibo waddan kale kuu dhiibay waddanka kalena negative adoo nacay baad tan aad ku soo noqon tanna waxba ka noqon maysid marka waxa weeyaan waddanka camal wuu buuxaa qofku horta inuu ilaahay aaminsanaado ayaa wanaagsan waddankiisa jeclaado waddankiisa hoos u eego waxa weeyaan beer aad falataana waa mid meesha taal wax ad camal la'aan ah oo waddanka horta jirtaa ma jirto ama xumana ma jirto marka waxa weeyaan waddanka aamina ayaan anagu idin leeyahay dhalinyarta wixii dee niyadeeda ay ku jirto in ay tahriibaan haddii social media ay noqoto Facebook ku arkay saaxiibkii oo yar taagtaagnaayo yar markii uu tagay dee yar salaxnaaday dee waxa weeyaan maxaad ku salaxnaatay cuntada taargiisoo kale macnaa dad doonay doofaar ba cunaa waxa weeyaan dadkan isku cunto ma nihin isku dhaqan ma nihin waxa weeyaan meesha lagama eedaamo salaamu calaykum laysmeedha wadi koob shaah iskuma shubto laysma martigeliyo qof kastaaba waxa weeyaan xiniyiisu saaran yahay marka in qofka aad weydiiso walaal bal ka waran waa sidee meeshu aad tiraa ayaa dee qurux badan haddii aad tiraahdo sawir qurux badan buu soo dhigo aadna cararto taadna sawir in badan waddankii ku soo kordhisay sawirkiina waa laga dhintaa sawirku wuxuu soo kordhiyaana ma jirto sawirka waa laga dhintaa laakiin ka dhimanaya sawirku inuu waddankiisa dee isku dhex sawira wanaagsan waddankiisa uu isagoo nool uu kaga shaqaysto marka halkaasaan kaga baxay